madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Mohamed Cagjar ayaa la filayaa inuu xilkiisa ku waayo shaqaqada magaalada Laascaanood iyo dhacdooyin kale oo ka taagan dowlad deegaanka uu xukumo. Somaliland waxay dacwad ka dhan ah ciidamada liyu booliska oo ka qayb qaatay dagaalka Laascaanood u gudbisay dowladda federaaliga ah ee Itoobiya, taasi oo keentay inay xoogaystaan tuhunada Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisu ka qabtay Mustafa Cagjar. sidan xogta ku helay Somaliland waxay rumaysan tahay in DDS hub iyo ciidanba kaga qayb qaadatay dagaalka Laascaanood ka socda. inkasta oo marar badan arrintaasi ay iska bari yeeshay, haddana cadeymaha muujinaya waxa ka mid ah shirka ka dhacay Jigjiga ee simada dhaqanka ee dhulbahante oo taladooda lagu galay dagaalka iyo maxaabiista Somaliland ku qabatay dagaalka. Baadhis ayaa maalintii shanaad ka socota xarumaha dowladda ee DDS soohdinta Itoobiya la wadaagtay Somalilandna waxa gaaf wareegaya ciidamada federaalka ka socda, kuwaasi oo isha ku haya hubka iyo saanada ciidan ee loo gudbinayo gudaha Somaliland. xaaladaha kale ee madaxweyne Cagjar ku waayayo xilkiisa waxaa ka mid ah dagaalada ka socda guri dhamaalo iyo sidoo kale deegaanka Tuli Guuleed oo u dhaxeeya qoomiyadda Soomaalida iyo qoomiyadda kale dhigeeda ee Oromada. waxayna dowladda federaaliga ah ee Itoobiya iyo qoomiyadda Oromadu rumaysan tahay in Mustafa Cagjar hub siiyay Soomaalida si loo xasuuqo qoomiyadda Oromada. markan xaalku waa uu cakiran yahay haddii Mustafa Cagjar lagu helo dambiyada ka dhana xasuuqa qoomiyadda Oromada iyo faragelinta Somaliland ee Laascaanood, xilkiisa ayaa laga xayoobin doonaa, waxaana suuragal ah in ciidamada federaalku xafiiska uga kaxeeyaan sidii Cabdi Ilay oo kale.